calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid soo dhawaada warka duurnimo calansida media waa duurnimo talaadaha qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah beelaha hawiye oo soo saaray go'aan xasaasi ah siyaasiyiinta odayaasha dhaqanka beelaha hawiye oo warmurtiyeed ka soo saaray khilaafka siyaasadeed ee ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si buuxda u taageeray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo xukuumaddiisa war-saxaafadeedka ka soo baxay waxgaradka beelaha hawiye ayaa bulshada reer Muqdisho looga codsaday in khamiista soo socoto ay ka soo qayb galaan banaanbaxa ballaaran oo looga soo horjeedo ficilada guracan ee madaxweynihii hore Doohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo banaanbaxaasi oo la shaaciyay inuu ka dhici doono fagaaraha taalada daljirka daahsoon ayaa ciwaan looga dhigay afgembi diidnay doorasho rabnaa beesha hawiye waxay saldhig u tahay dowladnimada Soomaaliya waxayna doonaysaa in hoggaanka dalka la isku wareejiyo iyadoo la raacayo shuruucda dalka ayaa lagu yiri warmurtiyeedka ka soo baxay beelweynta hawiye waxay shaaciyeen in uusan jirin damac kursi oo beesha uga jira garabka Farmaajo oo ay ku tilmaameen kali taliye ma jirto xuquuq siyaasadeed oo nooga maqan ama uu nasi karo kaligii taliye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay beelweynta hawiye beesha hawiye ayaa aad u cambaaraysay koox ay sheegeen inuu soo abaabulay Farmaajo oo been abuur ka faafiya beelweynta hawiye iyagoo cadeeyay in beesha aysan wax cilaaqaad ah la lahayn Farmaajo kooxahaasi waxay wareejinayaan inay shireen Farmaajo iyo beesha hawiye waxaan shacabka Soomaaliyeed u cadeynaynaa in uusan jirin haba yaraatee wax kulan ah oo aan la yeelanay Farmaajo ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay hawiye sidoo kale beeshu waxay cadeynaysaa in aysan jirin sabab ay hadda kadib xataa kula kulanto Farmaajo maadaama aysan waxba uga xirnayn waxaan cadeynaynaa in aysan jirin cid wakiil ka ah beelweynta hawiye oo la kulmaysa madaxweynihii hore kali taliye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu yiri sidoo kale bayaan ka soo baxay beelweynta hawiye beesha ayaa si buuxda isu garab taagtay shirka golaha wadatashiga qaran iyo howlgudashada ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaanu cadeynaynaa ummadda Soomaaliyeed in aanan u dulqaadan doonin cid kasta oo xagal daacinaysa cadaaladda uu wado ra'iisul wasaare Roble kuwaasi oo ku saabsan qabashada doorasho xor iyo xalaal ahi oo si nabad ah dalka uga dhacdo ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta beelweynta hawiye si kastaba ha ahaatee beelweynta hawiye waa isku duuban yihiin waxa ayna doonayaan in doorasho xalaal dalka ka dhacdo Farmaajona halkaasi uu ka baxo dhinaca kale qaramada midoobay war ka soo saartay heshiiska cusub ee golaha wadatashiga qaran war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay shirkaasi heshiiska cusub ay magaalada Muqdisho ku gaareen golaha wadatashiga qaran oo go'aan ka soo saaray xaaladda dalka iyo doorashooyinka qaramada midoobay ayaa bogaadisay qodobada ay soo saareen ra'iisul wasaare Roble madaxda maamul goboleedyada dalka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir kadib shirkii Muqdisho ku soo idlaaday qoraalka ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay inay muhiim tahay in la helo natiijo la aamini karo marka la gaaro waqtiga cusub ee la qabtay si loogu soo gabagabeeyo doorashada xubnaha golaha shacabka Soomaaliya qaramada midoobay waxay aaminsan tahay in mudnaanta hadda la leeyahay ay tahay fulinta go'aamadaasi si loo gaaro natiijo la aamini karo waqtiga cusub ee la qabtay ayaa lagu yiri qoraalka kooban ee ka soo baxay qaramada midoobay Soomaaliya sidoo kale qaramada midoobay ayaa ugu baaqday madaxda maamul goboleedyada inay diiradda saaraan hufnaanta doorashada si ay u noqoto mid lagu kalsoon yahay waxa kale oo ay qaramada midoobay shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in hogaamiyaasha Soomaalida ay sii wadaan wada shaqayntooda isla markaasina ay ka fogaadaan wax kasta oo keenaya khilaaf hor leh ama uga sii dari kara xiisada taagan hadalka qaramada midoobay oo si dhow ula socota xaaladda dalka cakiran ee Soomaaliya ayaa ku soo aadaya iyadoo Muqdisho lagu soo xiray shirkii golaha wadatashiga qaran oo lagu go'aamiyay in doorashada lagu soo gabagabeeyo muddo 40 cisho gudahood ah si kastaba Soomaaliya ayaa ku daahday xaaladda kala guurka ahi ee ka dhalatay muranka doorashooyinka oo muddo sanad ahi dib uga dhacday waqtigii loo qorsheeyay in la qabto taana sababteeda waxaa iska leh madaxweynihii hore Soomaaliya Doohane kali taliye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si kastaba ha ahaatee khamiista soo socoto mar haddii beelweynta hawiye shaacisay in banaanbaxaasi uu dhacayo yaa waa qofka hor istaagi karo Macali Yare Cali mase madaxweynihii hore Soomaaliya Doohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media بسم الله الرحمن الرحيم شعبك الصوماليات شرفت له ميل والبا واد جوجتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بينما يود جيرك شعبك الصوماليات وها أي فرويهن جيرتان كنا يأودين قرنمو تاسي وها دور كأوين كله لن يرى إنه أو أغلبية ده ومدى الصوماليات
baraaruga dhalinyarada Soomaaliyeed ee dhanka horumarka iyo dowladnimada waa midka nagu dhiirigeliyay inaan ku aamino hogaaminta hay'adaha kala duwan ee dowladda iyo inay kaalin mug leh ku yeeshaan dowlad dhisidda, nabadeynta iyo ilaalinta danta guud. waxaan idinku boorinayaa inaad dadaalkiina sii joogtaysaan kana fogaataan wax kasta oo caqabad ku noqon kara higsiga shacabka Soomaaliyeed iyo mustaqbalka dalkeenna. marxaladan xasaasiga ah aan uga gudubno midnimo, wada tashi iyo wax wada qabsi. walaalayaal, dagaalka uu dalkeenna kula jiro argagixisada waxaa udub dhaxaad u ah dhismaha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed oo u taagan halganka ka dhanka ah kooxaha argagixisada ama arxan-laawayaasha ah ee caadaystay daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed iyo burburinta hantidooda. anigoo taas ka duulaya waxaan dhexda aan u xiranay dib u dhiska ciidamadeenna oo ku shaqeynaya duruufo adag oo dhan kasta ah. waxaan xoogga saarnay inaan diyaarino hanaanka dhismaha ciidamada qalabka sida, tayeenta tababarkooda iyo casriyeenta nidaamka maaliyadeed ee ilaalinta ama lagu ilaaliyo xuquuqdooda. dadaaladaas iyo qorshayaashaas aan hirgelinay waxay horseedeen in maanta ciidamadeenna geesiyaasha ah ay awood u leeyihiin hanashada amniga dalka, uuna gabagabo marayo qorshihii ay kagala wareegi lahaayeen amniga dalka ciidamada AMISOM oo u huray naftooda garab istaagga dowladnimada Soomaaliyeed. shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh, siyaasaddeena arrimaha dibadda waxaan ku dhisnay wax wada qabsi, is ixtiraam dalalka caalamka ah iyo ilaalinta sharafka iyo madax bannaanida dalkeenna. marnaba maynan aqbalin in arrimaheena gudaha uu shisheeye soo fargeliyo, annagoo ka dhowrsanay tallaabo kasta oo hoos u dhigi karta ama u dhigaysa qabka iyo qaranimada Soomaaliyeed. marnaba maynan aqbalin in duruufaha nagu xeeran awgood nalooga faa'iidaysto oo la isku dayo in go'aamadeenna gacanteenna lagala baxo. siyaasadda gobonnimada ah ee arrimaha dibadda ee aan qaadanay waxay horseeday in markii labaad Soomaaliya loo doorto 4 sano gudaheeda xubinimada golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay. waxaa sidoo kale madaxweyne ku-xigeen aanu ka noqonnay golaha loo dhan yahay ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa, annaga oo haatan u sharaxan xubinimada golaha amniga ee midowda Afrika oo ay doorashadiisu dhacayso dhowaan. sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya waxay u diyaar garowday musharaxnimadeeda ka mid noqoshada dalalka aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee loo yaqaan Security Council-ka oo ay noogu dambeysay muddo 50 sano ka hor. walaalayaal, sidaad ogsoon tihiin waxaan xoogga saarnay inaan idin ilaalino ammaanada aan idin hayno. waxaanan meel marinay shuruucdii lagula dagaalami lahaa musuqmaasuqa, annagoo sidoo kale xoogga saarnay shuruucda lagu horumarinayo hanaanka maaliyadeed ee dalka, kaas oo abuuray daahfurnaan iyo hufnaan ay ka markhaati kaceen khubaro dhaqaale iyo hay-adaha caalamiga ah ee arrimaha maaliyadda. waxaan meel gabagaba ah soo gaarsiinay tallaabooyinkii aasaaska u ahaa ololaha deen cafiska, annagoo haatan sugayna miro dhalka dadaaladaas lagu cafinayay dhammaan deymaha culaysiyey dalkeenna. taasi waxay u baahan tahay inaan sii ambaqaadno qorshayaasha hawshaas lagu sii dardargelinayo iyo inaan xoojinno dadaalada lagu adkeenayo dimuqraadiyeenta dalka oo ay ugu horeyso ku dhaqanka dowlad wanaag iyo hirgelinta doorashooyinka. sida ballanqaadkaygu ahaa, waxaan mar kale aan ku celinayaa inaan marnaba aynan aqbali doonin in lagu takrifalo hantida danta guud
iyo ammaanada ay shacabka Soomaaliyeed noo wakiisheen xaalad kasta oo aan ku sugannahay. waxaan mar kale aan farayaa hay'adaha dawladda iyo mas'uuliyiinta kala duwan inay ilaaliyaan hantida danta guud maadaama lagu jiro xilli doorasho ayna tahay waxa ugu horeeya ee adduun iyo aakhiraba la iskula xisaabtamayo. walaalayaal mudanayaal iyo marweyn waxaan rabaa inaan halkan ka bogaadiyo shirkii madasha wadatashiga maalmahan uga socday magaalada Muqdisho kaasoo ay ka soo baxday natiijo wanaagsan oo xaqiijinaysa dhamaystirka doorashooyinka dalka. shirkaasi waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ka jawaabaya tabashooyinkii laga qabay habsami u socodka doorashooyinka iyo sidii looga gudbi lahaa caqabadihii ku gudbanaa geedi socodka doorashada. warmurtiyeedka shirkan wuxuu mar kale xoojiyey heshiisyadii arrimaha doorashooyinka ay ugu muhiimsanaayeen heshiiskii jihaynta doorashooyinka ee 17 Sebtembar 2021 oo ay si wada jir ah u ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka iyo shirarkii kale ee madasha ee ku aadanaa fulinta hanaanka doorashada iyo xal u helista tabashooyinkii ka soo laabtay habraacyadaas. Soomaaliya maanta ma joogto xilli la isriixo la isculaadiyo lana kala qaybsamo. dhammaanteen waxaa mas'uuliyad naga saaran tahay inaan dhowrno sharafta iyo dowladnimada dalkeenna. jidka kaliya ee looga baaqsan karo caqabadaha waa in madaxda dowlad goboleedyada ay qaataan doorkooda hogaamineed ee kaga aadan fulinta iyo dhamaystirka doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee haatan socda. danta gaarka ahna laga hormariyo xasiloonida iyo danta guud ee dalka. mudanayaal iyo marweyn madasha wadatashiga qaranka waxay mas'uul ka tahay hirgelinta doorashooyinka si waafaqsan dhammaan heshiisyada aan hore u soo sheegay oo saldhig sharciyeed u ah una fududeynaya sidii ay u dhamaystiri lahaayeen doorashooyin daahfuran oo ka turjumaya himilada shacabka Soomaaliyeed. sidaas awgeed waxaan ku adkeenayaa madaxda madasha wadatashiga inay ka dhabeeyaan fulinta qodobada ku xusan warmurtiyeedkooda ayna hirgeliyaan jadwalka doorashada oo ay isla qaateen oo si cad u qeexaya muddada lagu dhamaystirayo doorashooyinka dalka. mudanayaal iyo marweyn shacabka Soomaaliyeed ma xamili karaan isqabqabsi siyaasadeed iyo cagajiid lagu sameeyo hanaanka doorashada. waxaan alla ka baryaynaa inuu doorashadan noogu dhameeyo jawi nabdoon naguna hago dhabaha horumarka iyo baraaraha. wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.